جيت كيجي ديرا قلوعنا مياد كنت المعطي برق جوابه بحنا يا فيري جيت كيجو برق ما هبول وكيد ديرا قلوعنا اللي بدنا نحكي له في شرتي absolutely جواب تدو سيء عيدا يدا كوريسي يدا نينك حبنتي سترنك كشاكيسي يدا سريرتيدا كشاكيسي يدا إلا فري نoo sheegtay yada midiyaha iskaantay waxa la yiri shimbir dul badani afli baax bay gashaa waxay tiri waxaan dhuusta moodaya xaarig u noqday ka bacdina dib bay isugu fadhiisato way isku naxday markuu ku hamaansaday libaaxi absolutely waa landheera dhalay naftiisu difaaci wuu isdifaaci ninkaas wallahi adaaba ku haysta dib bay qabtay adiga qalloocay dib bay qabtay ayaana in adeer waa ku salaama assalaamu calaykum okay anigana waxay rasiiyay aan fikradeeda ka maya dhigtay walaal waan dhamaysanaya oo idinka baxaya marka ninkaasi wuu isdifaacay markay cirdigiisii iyo sariirtiisii iyo sharaftiisii banaanka keentay waayahay war waxaan idin leeyahay malyuun ninkani beenka muu soo gudbin naagaw guryihiina hagaajista ninku markuu idin guursado ma aha ninku inuu naag waayey dooq baa idin keenay ma aha inaad isdayacdo inaad cadarkaaga ka tagto unsigaaga ka tagto maxay hayto maydhaada ka tagto cadaygaaga ka tagto gurigaaga ninkani waa reer baa dhalay dooq baa kuu keenay kulamuu dhalan waa nin Soomaaliyeed wuu ku guursaday is hagaaji naftaada hagaaji oo ka shaqee gurigaaga hagaaji ilkahaaga hagaaji naftaada waqti geli life kan 24 saac iska daa bari markaad kala tagtaan waa nin Soomaaliyeed wixii doona kaaga iman kara wuu qabay nin buu ahaa boqol loo ahaa na waxa adeer idinka la idin dhahaa wixii casarkii la isku arkaa cishii la isku caaya ninkani muusan dhalin shalay buu u yimid dooqiyo jacayl baa u keenay dee sidii ma aragtay naagnimana wuu ka waayay waraabay ku darsatay waxa la haddaad indhalaan ku ogay dad cunnimay ku darsatay hadday aamusan tahay wuuba iskaga tagi lahaa waxba kama u sheegeen waraabanimay ku darsatay way cuntay gogashii iyo gurigiiba balaaya kaga baxday iyo dibadiba markuu tegay muxuu ku xishoodaa ninku dhan walba dabbaa kaga baxay wuxuu ku xishoodaa ma yaalin nimankan waxaan leeyahay mukhtaar oo cidina kuumahan jabi karto laandheeraa tahay malyuun dhiiqana allah ku dhaafiyey hadduu biri qaana saddexdii bilood ay xaaraanta ku wada joogteen bay kaa noqon lahayd oo odhan lahayd warniyo waxaan kugu guursadaba ma haysid waxaasi waa been annaguba waa aragnaa waa ognahay saddexdii biloodna alla dembigiina ha dhaafo haddaad sirxanaydna alla caafimaad ha ku siiyo waxaan leenahay malyuun alla dusheeda ha ka yeela xataa saddexdaa bilood malyuun baan anagu dusha ka saaraynaa saddexdaa bilood anigana wax yar hal daqiiqo hal siiyo waxay tahay kaasoo horeyna mudgal saa loo soo kala horeeyaa loo kala hadlayaa war aniga shaqaa ku jira hal daqiiqo hal siiyo walaalayaal please naga degay aniga waxay ila tahay horta qof u hanjabi karaa ma jiro qofka adagna ma jiro meesha joogan waa Yurub mid waa midaas nin wax caayana mukhtaar ugu horeynin mukhtaarna caayada ugu horeysay wuxuu arkay in buuna sheegay waana aaminsana wuxuu sheegay oo uu yiri 6 bilood ana u cadeeyay maxaa yeelay gabadhaas 2 sano 24 hours life ay ku jirtay goormay kansho isku hesho isku dhaqdo horta mid anigu aaminsanahay taas 100% baa rumays haduu yiri 6 bilood ana u qabanayo cadeeyay inaan waqti she don't have chance to wash herself may saynin sababtoo 24 hours life ay ku jirtay waa arkayna taas midda kale mukhtaar ninka ragga qaabku u baxaa laga garanayaa structure-kiisa laga garanaya mukhtaar guuskiisa inuu guus dameeri ana nin weydiinan waxay biriq leedahay taasna hadee waa arkaysaa waa naag iska qareersan haddii asaga xaggiisa u leexdana waxaa ficneed waxaan waa dumar ayadaha iska bulqantay asaga inuu afkiisa qabsado oo haddii la weydiiyana uu dhaho gabadha waan qabay waana kala tagnay intaasaa ficneed asagu taas khaladka taasay xaggaa kaga dhacday oo hadda ma arkaysaa taasay qalad ku galay laakiinse waxay ku hadlaysaa ay leedahay guus biriq buu ahaa inuu guus dameer ku yaallo anaan ninna weydiinayn nin gaaban oo murqo weyn oo wegdal oo qaabka u baxay kaasoo kale naagoo dhan hataa naaga qaar baa uyuuba dilaab u dhintaaba ma fahanteen marka waxaan leeyahay gabadhaas markuu 2 times oo khaldamay naag ayadiba qabuuraha dadka qofka gabadhaas waa qofka ugu horeeyo qabuur dad ku jira caayaheed waa ogaa Soomaali qof asagiiba ma arkaysaa qof qabuuraha islaamka qabuuraha ku jira ka baxsan waa in horta u gala ma ahan hadduu u galayna kulli baayo wiilkaasa meesha ka shaqaraha wiilkaasa meesha alla ka sababayay wiilkana kulli wuxuu arool galay ma arkaysaa inta isbarsan inta nolosha inta ay ma arkaysaa tumanayeen maaha inta hore ay la baashaalay maaha inta dambe isguursadeen buu arool galay wiilka naga xarantimanina waa salaamanteen Soomaaliyeed ninkaas inuu guusto markii alla laba alis weydiinaysa bye bye ceebta adduunka ka dhacday meesha ceebta adduunka inaad ku socayna Mustafa